subxaan allah wax walba oo social media ku aragtaa rumaysan sidaynu la socona subaxyada la soo dhaafay waxaa baraha bulshada ku kulanto aad ugu faafay muuqaal la sheegay haweeney isu bedeshay lo kadib markii ay samaysay Google Dhaaf muuqaalkaani dad badan ayaa rumaystay balse xaqiiqda muuqaalkaani ku ogow waa su'aal mug weyn oo maankayga miratee aan ku micnay dhagaha maqalkiyo maankiina iyo fura aan soo fasaxay wadaha ka feedinay beentii ay falkinayeen sida muuqaalkaani ku aragtaan waa haweeney dhulka fadhisa dad badan ay kordhoobay yihiin iyagoo wada daawanaya haweeneydana qaybta dambe ee jirkeeda uu ka muuqdo qoob la-aad iyo sayn la-aad oo sameynaysa dhaqdhaqaaq muuqaalkani waxaa baraha bulshada sida YouTube, Facebook, TikTok iyo Twitter soo geliyay markii ugu horeysay website laga leeyahay dalka Tansaaniya laakiin waaritaan dheer oo arrintaani lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday in muuqaalkan uu yahay mid been abuur ah oo la mid ah kiila lahaa waxaa qayb ka mid ah gobolka Galgaduud lagu arkay sagaar ku hadlaya luqadda Carabiga waana kugu ceebiya garashiiri haddii aad rumaysato arrimahan oo kale adigoo ah qof muslim ah aqligiisu taam yahay waxa alla noo siiyay aqliga noogana soocay qalqigiisa kale inaynu ku kala garanno maxaa sax ah maxaa qalad ah dhanka kale waxyaabaha cadeynaya in waxaanay been yihiin waxa ka mid ah maxaa haweeneydana loo istaaji waayey oo nolol tusi waayay iyadoo taagan oo luga lo-aad leh maxaysan arrintan uga hadlin laamaha ammaanka iyo dhaqaatiirta waddankaasi haddii waxaanay run yihiin muuqaalkaani mid la mid ayaa bilo ka hor saan oo kale baraha bulshada qabsaday kaasi oo lagu sheegay in lo isu bedelay nin la yidhi waxa u galmooday haweeney la qabo taasi oo iyadana caddaatay inay been abuur tahay sheekadaas iyo muuqaalkaas ayaa isagana ka soo baxay waddanka Zimbabwe sidoo kale waxa isweydiin mudan maxaa labada muuqaalba loo dhahay ninka iyo naagtaba waxay isu bedeleen lo maxaa xayawaan kale ay isugu bedeli waayeen haddiinu ka fiirin dhanka wanaagsan waa muuqaal digniin u ah qof kasta oo ku hoolan arrin aan wanaagsaneyn iyo inuu qof uu sameeyo galma xaaraan ah taasi oo ciqaab aan ciribteeda wanaagsaneyn qofka u horseedi karta waana arrin mudan in laga digtoonaado laakiin sidaas oo ay tahay weli harumaysan wax walba oo aad ku aragto baraha bulshada hana sii faafin waxaadan hubin run iyo been waxa ay yihiin yaan lagugu qaldin eriyada ay ka mid yihiin subxaanallah mucjiso baraha bulshada run iyo been baa dhooban haddaba adigaba aqlaal leedahay kala saar run iyo been kadibna runta qaado adoo iska indhatiriya beenta iyo propagandada muuqaalkani sii gaarsii dadkii rumaystay in muuqaalkani uu ahaa mid run ah si ay uga digtoonaadaan aysan ugu qaldamin muuqaalada noocan oo kale ah ee baraha bulshada aad u dhooban waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. Hello, we are Ashri Media. If this video reached you, please share your friends and follow our page to encourage us.